laga dhaxwado ay dawladdu ka dhaxwato iyo dhibaatooyinka ka taagan bariga Soomaaliland oo maanta uu madaxweyne ku xigeenkii Puntland imanayo laascaanood runtii ay horeyso ta baarlamaanka waxaan aad ula yaabanay isweydiinaynaa dadku isweydiinaya shacabka dawladdii aanu soo dooranay ee aanu u soo dooranay xilka ummadda waxay ku mashquushay waxyaabo aanay xaq u lahayn oo ah sharciyada baarlamaanka maxaa u yaala maxaa ka galay sharciga baarlamaanka xeer hoosaadka sharciga maxaa ka galay dawladda xeer hoosaadka sharciga waa shuruuc iyagu sharciyood ay u leeyihiin iyaga u yaala inay ku mashquusho hanti badan ku lumiso oo hantidii ummadda ee cashuura laga qaadaya ay ku lumiso laaluush ay ku bixinayso ku codeeya baarlamaanka oo u codeeya xeer hoosaadka awoodda si loogu soo celiyo kuwii baarlamaanku ay ka qaadeen awoodda ay ka dhimeen awoodooda ee xeer hoosaadkooda ahaa waxaanu leenahay ninkii lahaa caanaa riyaha waa sanka ayay ka daadanayaan waxay u eg tahay inay qaar badan siiga ka geli doonto sanka anigu waxaan u arkayaa diile legdam u joogay saaka caawa wuxuu taagan yahay legdamadiye legdankii ma wuxuu keenay inuu awoodii dhaqaalaha isugu geeyo xeer hoosaadkii baarlamaanka waa wax aad looga xishoodaa waxaanu leenahay madaxweyne dalka loo egmadee loo doortay ha lagala baxo faraha xeer hoosaadka baarlamaanka oo ha loo daayo shuruucdooda hoose taa halkaasaan kaga tegaya ta labaad waxaan leeyahay dee waxaa la yidhi wax rag loogu mahmaaha maaha islaam baa tidhi inta aan gudo kala eegaya baa gudahayga xumaada war maxaa loo arki waayay Soomaaliland halkay soo tawaqa maanta madaxweyne ku xigeenkii Puntland imanaya buu hodle laascaanoodna maanta waxay ku jirtaa qeyro maxay dawladdu weydaytaa maxay taa qaylaan ugu diran weyday maxay taa ciidamadeeda ugu istaabgaran weyday waxaan leeyahay war hal la eego hareero Soomaaliland baa maanta qaybisii go'aysa Puntland raacaysaa taa ha eego anigu halkaa ayaan kaga baxay nin baa inaan dhalay nin baa ina dhalay inaan tibu taag waay naayna yahay joog inaan tiyo si socoto mu arkaa haddan buu yahay wuxuu ina yahay ku taag waay dhaxda ka yeedha laaki doonaa buu horta xirsi loo taag waayay adeerkii wallahi dhaxda ka yeedha ayuunbaa horta ayaa la yaabi doonaa taas waa mid waxa weeyaan shalay ooyeen waan looynay kursigii baan saaray maantana way ooyaan taasuu ninka hore sheegay laascaanood ma ka dambaynayso madaxweynaha boohood la yimi aroortan laascaanood buu imanayaa badhana hore u tegey cabdiweli gaas ceerigaabana waa ogtihiinoo waxa weeyaan waxa uu ku hanjamayay inuu wadda u samaynayo oo kasoo bilaabaya xagga shishe waxaa ma arko waxa ku dhacay weershi cudurkan leeyahay weershowga ee dadka ku dhacay inuu isku jeestaan ayaa siyaasadii ku dhacay dawladda labada indhood baa isu jeeda waxay arkayaan gurigan xiga waxay arkayaan qofkan xiga waxay arkayaan siyaasigan xiga waxayna siyaasadeedba ku dhacay madaxweynaha waddanka ay u dooranayna in badan afka laga dhowray madaxweynuhu waddanka ma xukumo saaka waxaa caddaana oo aan marag madoona ama universal lagu eriyo ama nin siyaasiyaha lagu xidho inaanu waddanka xukumin maadaama isagoo jooga Liverpool xisi wuxuu ogaa kaga hadlayay maadaama isagoo maqan xirsi lacag ku qaybinayo burco ku qaybinayo madaxtooyada oo xildhibaanada ku qaybinayo maadaama oo waxa weeyaan madaxweyne silaayo 7 sanadood sanadaha baan ugu wada shaqeynaa ana sanadaha meel kasta uu ka qodbeenayay uu ka hadlayay waxa weeye madaxweyne silaayo sidii loo doortay fagaara ma iman qayriyada kama hadlin targeysa taburco taargaabo waxaan maqlaa saqda dhexe labadii habeenimo madaxweyne wareegta soo saaray madaxweynaha wareegta soo saaray muxuu maalintii soo saari waayay waa is weydiin su'aasha horta Soomaaliya is weydiiyay midda kale waddanka inqilaab ka dhacay inqilaab askariya ayaa ka dhacay sidii oo waddanka inqilaab lagu qabsaday madaxweynuhu meel cod ku iman dadkan uu la dagaalamaya meel dadkii doortay ahayn arrinta buuhoodle wax la dulqaadan kara maaha dawladda jawaab degdeg ah ka bixiso buuhoodle in madaxweyne ku xigeenku yimaado Britain laascaanood tago baran tago wax la aqbali kara ma aha madaxweynaha ku ahaan maayo sidaa waxaan u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliland xukuumadda golayaasha qaranka dhammaantood ogeysiintaasaan siinaynaa mana aqbali doono haddana dadweynaha waa weeyaan naga ayaa haddii wax ka qaban waayaan arrintaa ka tiri doona
dalkayga weeye bohood waddankayga weeye cid ku soo xadgudubta ma ogolin qodobkaan halkaasaan kaga tegayaa intaa waxaan ku dari lahaa oo ii raaca wax yaroo aan mudnayn oo kooban bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku darayaa intaa waxaan ku darayaa ii raaca war waddanku waa waddan xora xornimadiisa cid kastaana cadaalad baa dadku u baahan yahay war dowladdu dadku cadaaladdaa deeqda lacagta jeebkaa laga soo saaraa ma deeqdo ta jeebka sare lagu jisadana ma deeqdo xil la wada siiyaa ma deeqo leesh la bixiyaa ma deeqo kuwa madaxweynuhu aragnaayo kuwa meesha xukuumada madaxweynaha jiifada xisi ka mid yahay dee iyaga laftooda madaxweyne doonayaane dee siyaanya waxa weeye waa aragtaan idinku hadda madaxweyne doonaysaa sidan si ku dhaantaa imaada reer